Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Kusoo dhawaada Soma IT Tutorials iyo cashirkii 14aad ee C++ ka. Cashirkan 14aad waxaan ku qaadan doonaa haddii la idmo switch statement. Waxaan hore usoo qaadanay haddii aan idin xusuusiyo casharadii aan ugu dambeeya soo qaadanay waxaan kusoo dhex jirnay control statementska oo saddex xaba ah: conditional statement, iteration statement iyo jump statement. Conditional statementska waxaan kasoo qaadanay if else sida loo isticmaalo program ah waa soo qornay, nested if else sida loo isticmaalana waa soo qornay. Cashirkan 14aad waxaan ku qoraynaa haddii la idmo program ah sidee iyo muxuu yahay. waxaan ku sharxi doonaa switch statement maxaa la dhahaa, sidee loo isticmaalaa. Switch statement waa statement ka mid ah statementyada decision makingka ama muxuu ahaa selection statementska la dhaho. Programka waxa uu fiiriyaa wuxuu isticmaalaa inta badan cases ayuu isticmaalaa. Caseskaas ayuu wuxuu u jeegareeyaa valuegaas ayuu wuxuu u fiirinaa caseska kabacdi caseki match gareeyo ama equal la noqdo valuegaas ayuu wuxuu daabacaa statementii caseskaas lagu sheegay. Inta badan switch statementiga waxaa la isticmaalaa bedelkii if else soo celcelin lahayd wax badan if else isticmaal lahayd ayaa switch case kaga qoran. Marka aan fiirino marka program ahaan sideen u qorinaa, waxaa muhiim ah marka hore fahanto. Teeda kale waxaad ogaataa switchka wuxuu ku shaqeeyaa nambarada muxuu ahaa iyo xarfaha uu ku shaqeeyaa, laakiin string ma qaato C++ iyo C markaa joogtid. Waxaan isticmaalaynaa marka variable waxaan qeexaynaa tusaale ahaan oo kale option ayaan qeexnaa. Waxaan marka hore programkan aan qorayno wuxuu ku saabsan yahay tusaale waxaan rabnaa inaan sameyno isku dar, isku dhufasho iyo ka jarid. saddex xabo waa kulli waa sameyn kartaa, laakiin saddexdana kasoo qaadanaynaa saysan nagu dheeraanin. Marka programka waxaan rabnaa userka codsi oo soo dhiibto inaan u celino isku dar ama kala jar ama isku dhufasho. adigu marka waa ku dari kartaa saddexdaas qoraa, kuwa kale adaa ku darsan kartid. marka option userka uu dooranayo optionkaas hadduu doorto waxaa loo sameynaa ku dhufasho. haddii optionkaas uu doortana waxaa loo sameynaa ku darid. haddii optionkaas uu doortana waxaa loo sameynaa kala jarid oo kale u qaybin iyo calaamada reminderka la baarayo iyo kulli adiga marka ku sii dar. waxaan qaadanaynaa x iyo y. waxaan leenahay tusaale ahaan oo kale marka message ayaan userka u dhigaynaa si uu u ogaado wixii la rabo. waxaan leenahay tusaale ahaan oo kale for addition press 1 oo kale ayaan leenahay. addition haddii aad rabtid userka waa inaad taabatid 1 ayaan leenahay. kabacdi waxaan isticmaalaa calaamadan /n-ka. /n-ka waxaa loo isticmaalaa marka aad rabtid tusaale value ka dambeyn doono inuu ka bilowdo len cusub ayaa /n-ka isticmaalaa. oo tusaale ahaan oo kale for subtraction marka aan leenahay len cusub ayuu ku bilaabay. okay, for subtraction waxaa leenahay marka press 2. /n marka waxaa u isticmaalay ka dambeeyo si muxuu ahaa uga bilaabato len cusub si ay uga bilaabato. for multiplication waxaa taabataa press 3. saddexdan option ayaan kusoo gaabinaynaa tusaale leen ka rabnaa marka inaad fahanti, laakiin waa badin kartaa adiga. options badan ayaa qaadan kartaa muxuu ahaa xad ma lahan adiga muxuu isticmaali karo. optionka marka waxaan leenahay userka inuu geliyo marka press optionki waxaan leenahay marka in ayaan leenahay marka waxaan leenahay optionka in la qaato userka optionka uu geliyo. waxaan weydiinaynaa marka optionka uu geliyo inuu geliyo laba value inuu geliyo. waxaan leenahay enter two values. laba value geli. laba value marka waxaan qaadanaynaa tusaale ahaan oo kale waxaan leenahay x inta horteeda waxaa sii dhigtaa y. weliba waxaan casharka uga sii faa'iideysan kartaa. waxaan soo isticmaali jirnay marka value kasta aan qaadanayno userka qaadanayno in gooni ah ayaa isticmaali jirnay. maanta waxaan isticmaalaynaa hal ayaa waxaan ku dhex isticmaalaynaa hal mar ayaa userka waxaa ka qaadanaynaa laba value aan ka qaadan. dhowr value waa ka qaadan kartaa. marka qaabkan hal line aan ku qoraynaa maadaama aan soo celcelinayn bedelkeeda koodku muxuu noo soo yeeraynaa. waxaan weydiinay addition haddii aad rabtid waxaa taabataa 1. haddii aad rabtid kala jarid waxaa taabataa 2. haddii aad rabtid isku dhufasho waxaa taabataa 3 ayaa dhahday. optionkii aad weydiisay optionka markuu taabto waxaad weydiisay inuu laba value geliyo, laba value ayuu geliyay. hadda marka shaqada ayay ku bilaabanaysaa. waxaan isticmaalaynaa switch statement. switch ayaan isticmaalaynaa. waa keyword. waxaa furaysaa marka parenthesis ayaa furaysaa. parenthesis dhexdiisa ayaa waxaa gelinaysaa marka optionka userka oo aad weydiisay
optionka ayaa gelinaysaa. Optionka markii aad weydiisay marka waxaa sameynayna marka case ayaan sameynaynaa. Tusaale ahaan waxaan leenahay one haddii oo taabto waxaan rabnaa inuu isku darid sameeyo. Case-ka haddii uu la mid noqdo one haddii uu la mid noqdo colon ayaad isticmaalaysaa. Waa muhiim, syntax waa. Haddii ay kaa qaldanto ma shaqeyn doono. Colonka marka isticmaalno waxaan leenahay tusaale ahaan oo kale waxaan leenahay addition kabacdi waxaan sameynaynaa inaan soo celino x oo lagu daray y. sida ujeedidba haddii case-ka koowaad waxaan dhahnay userka inuu geliyo press 1 aad ku taabto waxaan rabnaa addition inay daabacdo. Case-ka marka wuxuu daabacaa addition uu dhahay. Addition-ka string message soo bandhiga waa message-kan wuxuu raacinaa marka x oo qiimaha muxuu ahaa userka labada user ahaa oo labada data u qaatay oo la isku soo daraa raacinayna marka qiimahaas isaga waxaa raacinayna message-kan. Case-kan marka haddii marka case-kan la daabaco programka wuu sii soconaa cases kale u sii gudbaa. Si uusan u sii gudbin waxaa isticmaalaynaa break oo kamid ah jump statements-ka. Waxay joojinaysaa programka inuu ku ekaado case-kan 1 inuu daabaco bis ay ku ekaanaysaa. So cases-ka marka waxaan sameynaynaa copy ayaan leenahay ilaa sababtoo ah u baaxanaynaa cases badan inaan daabacnaa rabnaa. Tusaale ahaan oo kale waxaan leenahay 3 case. So case 2 waxaan ka dhigaynaa marka case 2 waa soo bedelaa sabcan la soco. Meesha waxaan leeyahay inaad soo celisaa subtraction waa inaad soo celisaa. Subtraction-ka marka x + 1 ma noqonayso waxay noqonaysaa x minus y. Break sidii u taal meesha u taala. Waxaan isticmaalaa case 3 waxaan leeyahay multiplication soo celi. Multiplication. Okay. Waxaan leenahay marka x oo lagu dhuftay y inay soo celisaa. Break sidii u taala marka. waxaa taala marka su'aal userka haddii uu geliyo ka waran 1 2 3 oo dirta adiga afar hadduu geliyo ka waran marka inaad ka hor tagtid al raba mar walba program aad qorisid waxa developer dhan haddii aad tahayba waxaa lagu xisaabtamaa userka wixii aad ka qaadanaysid aad weydiinaysid ma ahan hadduu wax kala geliyo maxaad rabtaa inaad tustid oo userka dhahid waxaan maqaadiig programkaaga wax walba iska soo galaan micnaheedu marka waxa waa easily ayaa muxuu programkaaga loo soo gali karaa. Hadda marka waxaan rabnaa userka haddii uu geliyo qiimo ka duwan waxaan isticmaalnaa default waxa la dhaho default semicolon ayaa leedahay. waxaan leenahay cout ayaan leenahay kabacdi waxaan leenahay sorry ayaan leenahay invalid option ayaa taabatay. Dabcan options badan waa siin karnaa laakiin anaga saddex programka saddex option aan tusaale ugu soo qaadanayna adiga marka inta practice badan ku sii samee optionka marka haddii uu muxuu ahaa daawacana waxaa la rabaa inaad break dhahid meeshaan ku jooji. Programka marka siduu u shaqeynaa inaad fahantid iyadana meeshay ku jirtaa. wuxuu u shaqeynaa programka userka waxaa tusisay message ah in haddii uu isku dar rabo uu taabto 1 haddii uu kala jarid rabana uu taabto 2 haddii uu isku dhufasho rabana uu taabto 3. optionkii uu qaatay userka waxaan weydiinay marka inuu geliyo labadii value ayuu geliyay optionska ayaan fiirinaynaa marka waxaan fiirinaynaa optionka haddii case 1 uu noqdo oo 1 haddii optionka userka uu doorto haddii 1 la mid noqdo waxaa daawacdaa addition x plus 1 soo celi marka x plus 1 breakna dheho case-kan yuusan u gudbin case-ka kale yuusan daabicin waan arki doonaa say u dhacaysa haddii breakta soo tiri doona marka aragno programka waa fiirinayna wax dhici doono waa tusaa. Case 2 haddii uu la mid noqdo 2 userka waxa uu geliyay subtraction samey haddii uu noqdo 3 na waxaa sameysaa multiplication mar walba soo celi haddii intaan wax ka baxsan 1 2 3 intaan wax ka baxsan ilaa intaa uu soo sheegtay marka 1 2 3 wax ka baxsan hadduu geliyna waxaa daawacdaa qaybta default-iga la dhaho ee invalid option. ogow cases-kan way soconayaan mar walba default-igaas ku tagtid programka waxaa leenahay compile and run wixii soo baxaayo waa inta marka dhexda idin keenaa saa aragtid. waxaa lagu weydiiyay marka addition waxaa la dhahaa press 1 subtraction waxaa la dhahaa press 2 and multiplication waxaa la dhahaa press 3. 1 ayaan taabanaynaa si addition aan u helno waxaana la weydiiyay laba value inaan gelino waxaan gelinaa 3 iyo 6 ayaan gelinaa labadii value space aan u dhaxaysiinaa markaan gelinaa haddii kala 36 oo programku fasiranaa. Enter markii aad dhaho waxaad arkaysaa 3 iyo 6 markii la isku daro waa 9 programku wuxuu noo soo celiyay addition is macnaheedu addition waxay mid noqonaysaa 9 yaa u sheegay programka addition 9 inay tahay adiga hore u soo sheegtay oo ah case-ka haddii 1 la mid noqdo x y isku soo dar addition na daawac oo message ah. Okay 2 aan gelinaa marka programka waxaan leenahay 2 haddii aad taabatid marka waxaa la rabaa subtraction-ka inuu ku weydiiyo labadii value ayaa la weydiinaa marka hore labada value waa gelisay enter markii aad dhahdid subtraction -3 sababta waxay noqonaysaa waxa yar muxuu ahaa
3 ayaa horeeyay marka asaga yar programka u fiirna marka 6 markii muxuu ahaa 3 markii 6 laga jaro waxay noqonaysaa -3 ayay noqonaysaa. So subtraction kunu soo celiyay ujeedid hadii aan 2 taabanay. Hadda waxaan rabnaa marka 3 na taabano 3 ayaan taabanayna programka wuxuu yiri gelin qiimaha 3 6 oo aniga tusaale aan soo qaadanaa qiimaha rata gelin karta adiga inta marka aad hadid wuxuu sameeynaa marka 18 8 iyo 18 oo soo saaraa sababtoo ah 3 iyo 6 ayuu isku dhufanaa multiplication oo message inuu ku daabacay. Hadda waxaan aragnaa marka in userkii uu qanacsan yahay uu sameyn karo marka isku dar programkeen uu calculator jabc macnaha tusaale ahaanba calculator ayaa wada saas ku sameysay oo ah muxuu ahaa addition iyo subtraction iyo multiplication bis ka kooban interface yarna heshid bis ka maqan. Userka waxa uu tusaale geliyay marka number ka baxsan intaan 1 2 3 number ka baxsan 4 oo kala haduu geliyo labadii value la weydiina programku wuxuu jeegareena markaas option ku jeegareena optionki marka uu wuxuu soo saaraa marka enter marka dhahno sorry invalid option ayuu leeyahay sababtoo ah optionka userka 3 kama gudbi karo 4 ilaa 6 ilaa 10 mid uu geliyay qalad marka. Okay waxaad ogaataa marka brick hadii aan bixiyo maxaa dhacaya fiir meeshan brick faa'iidada aan tusina marka brick waa bixiyo case koodan ka bixiyo hadii aad 1 gelisid wuxuu ku daabacaa x oo lagu daray y oo addition ah sidoo kale wuxuu daabici doonaa case ka xiga ayuu daabici doonaa subtraction ka en x - y uu daabaca ka bacdi brick taas celinaysa marka laakiin brick tii dhaxdan ku jirto waa bixiyo hadda tusaa marka faa'iidada brick ay leedahay marka cases ka ayay kala celinaysa si aysan isugu gudbin 1 riix 1 ayaa riixnay isku daraa rabnaa 3 iyo 6 inter markii aan maxaa soo bixi doono addition is 9 ayaa lu dhahay isla markaas waxa ku xiga dabcan space ma siinin mogta anaga ma isticmaalin /n subtraction -3 saa ujeedidba laba case ayaa la isku daabacay marka labada case isku daabacay problemka wuxuu ahaa saa ujeedidba 1 case 1 hadii la jeegareeyay programka waxa uu fiiriyay muxuu ahaa case 1 blogiisa uu daabacay waxa uu ka waayay break waxa istaajiye ayuu ka waayay markaas waxa uu u gudbay case 2 ayuu programka u gudbay marka break statement ayaa inta isticmaalayna si programka case 2 uusan ugu gudbin case kale uusan ugu gudbin. Waxa kale ogaataa default statementigan shardi maahan in aad u hoos marisid kat ayaan leenahay macnaha hoos kaliya ma gelin kartid oo korna gelin kartaa laakiin mar walba program ahaan waxa fiican inaad kor geysid. Hadda programka defaultiga waxa uu yaalaa saa ujeedidba muxuu ahaa qaybta ugu horeysa uu yaalaa programka defaultiga shardi maaha inaad mar walba gadaal marisid tusaale isku dar markaa 1 taabatid oo kale 3 iyo 6 aad gelisid 9 ayuu ku soo celinayaa hadii aad gelisid option ka baxsan intaasna default ayuu daabacaa saa ujeedidba defaultiga marka tusaale ahaan oo kale waxaan gelinay 5 oo kala dooranay 5 ayaa inta dhahnay laba value geliyo dhahay tusaale ahaan 4 iyo xataa 3 sorry invalid option sababtoo defaultiga ayaa shaqeynaya oo 3 ma dhaafi kartid marka defaultiga marka horan ma la dhigin inta badan sababtoo programka from top to down waa sidoo uu shaqeeyay marka aan defaultiga soo celino sidoo uu shaqeeyay marka programkeena hadii aan tuso sawir yar graafkan soo fiiri chartigan wuxuu u shaqeynaa tusaale ahaan programku wuxuu jeegareynaa expressionka ayuu jeegareynaa ka bacdi wuxuu fiirinaa markaas expressionkaas ama valuegaas wuxuu fiirinaa cases badan ayuu fiirinaa case 1 hadii laga helo statement 1 ayuu daawacaa break ayuu isticmaalaa statementigaas si aan case kasta looga bixin ka bacdi program down ayuu soo diraa oo switchkaas wixii ka sii dambeeya la daawacaa hadii wax ka dambeeyna meesha ayaa lagu simin doonaa case 2 markii programka uu dhaho waxa uu case 2 u fiirinaa expressionka sababtoo ah case 1 false ay noqotay saas daraadeed statement 2 ayaa la sameeyaa break ayuu isticmaalaa break wuxuu isticmaalaa statement 2 in aan la dhaafin programka waxa uu diraa down ka bacdi case 2 programka wuxuu kasii gudbaa wuxuu sii gudbaa case n oo ah case number ma xadidna inta case meesha ku qoran ay muxuu ahaa programku dhibataa markasta marka case kasta statementkiisa la daawacaa break ayaa la dhahaa saasan loo gudbin false markaas waxa loo case kasta false hadii uu noqdo case kale ayuu programku sii gudbaa ilaa uu ka tago qaybta defaultiga oo ah wax case kaas ka baxsan in la helo statementigana uu joogsanaa markaas wuxuu daawacay statementiga defaultiga break ayuu lahaa programka sida anaga programkeen hadda uga hadlaynay oo kale waxaan sameynay in userku uu sameyn karo kala addition subtraction multiplication uu ku sameyn karo optionkana userka ka qaadanaysid programkan oo aan uga hadlaynay switch statement oo kamid ah selection muxuu ahaa statementiska ama conditional statements soo galaya meesha ayaan ku sameynaa billahi tawfiiq